Guri ay degan yihiin dad qaxooti ah oo ku yaala bariga gobolka Jarmalka ayaa waxaa weeraray afar nin oo aan haybtooda la aqoonsan, sida uu sheegay booliska Jarmalka. Halkani waa deersame iyo anigoo ah Ahmed Xasan. Rag wejiyada soo duubtay ayaa weeraray guri qaxooti oo ku yaal bariga Jarmalka. Muwaadin u dhashay dalka Afghanistan oo 18 jir ah ayaa la dhaawacay kadib markii dhowr nin ay jabsadeen goob ay degan yihiin qaxootiga, iyagoo ku qaydinaya erayo nacayb ah oo cunsurinimo leh. Dembiilayaasha ayaa baxsaday markii dadka kale ee deegaanka ay yimaadeen. Afar nin oo wejiga soo duubtay ayaa weerar ku qaaday xero qaxooti oo ku taal magaalada Sebnitz ee bariga gobolka Saxony, sida ay boolisku sheegeen Axadii. Sida laga soo xigtay booliska, kooxda ayaa markii hore ka soo galay dhismaha albaabka dambe kadib waxay wax u geysteen wiil 18 jir u dhashay Afghanistan. Afarta nin ee weerarka soo qaaday ayaa kadib jir dilay wiil 16 jir ah oo guriga deganaa. Booliska ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay ku dhawaaqayeen erayo nacayb ah intii ay weerarka fulinayeen. Raggan ayaa ka baxsaday guriga kadib markii dad dheeri ah ay soo gaareen goobta uu weerarku ka dhacay. Gabadha goobta joogtay oo 16 jirka ah ayaan wax dhibaato ah ka soo gaarin dhacdada, halka 18 jirkana lagu daweeyey goobta. Ciidamada booliska ayaa goobta baaritaan ka sameeyey balse kuma aysan suuragelin in ay gacanta ku soo dhigaan dad laga shakisan yahay. Garabka amniga ee ciidanka booliska Dresden ayaa sheegay in ay baarayaan dembiyada waxyeelada jidhka ah ee halista ah, aflagaadada iyo xadgudubka. Hadda waxaan kugula talinayaa haddii aad kaam degan tahay iyo haddii aad guri qaasaba degan tahay oo ku gaar ah in aad is ilaalisid maadaama ay cunsuriyiintu iska jirto adiguna aan waddanka u dhalan.